دوان سو باسكريين برلمان كدولة الصومالية مدحوينها عن سو باسكريين شرعيا شقدان waxay bilaabantay in la sameeyo xafiisyo miidka fayadhowr hilibka laga sameeyo gobolada bishii March sanadkan bishii saddexaad soo bilaabantay 23 dhakhtar oo magaalada Sheekh ay kasoo tababareen wasaaradda xoolaha iyo fawaysa ka shaqeynaya jaamacadda Nairobi ayaa waxa lagu soo tababaray 23 dhakhtar 23 waxa loo qaybiyay 7 gobol oo kamid ah wadanka halkan waxa inoo jooga 3 dhakhtar oo aniga aan kamid ahay marka waxa la doonayay in shaqagelintii sharciga la soo baaskiriyay la bilaabo xafladan waxa furtaan u tahay kulli sharcigaas inaga buuga laga hadlo sidii caadigii waxaan ku furan doonaa wax maanta la jooga marka wasaaradda xoolaha group ka socdo oo sharmaaka kamid yahay kulli maarka aan furo doonaa xafladda inoo jooga tali suduwihii xanaada xoolaha gobolka waa fadhiya marka sidii caadigii waxaan ku bilaaban doonaa marka hore aayado quraan oo inoo akhriyo mid inaga mid ah Abdi Qani had maqaamka kala ahaa suduwaha wasaaradda xanaada xoolaha Dr. Bulbul Maxamed Ducaale isaga markaa noogu soo dhawin doona maayirka oo inoo furi doona xafladda ku soo dhawaysay laba maalmood oo ay gelin soo sheegay madaxa hilibku labada maalmood waxa is fiican loo baayis in badan waxaan soo marnay in badan laga soo sheegay hilibka wixii dhinaa oo ah dhaqaatiirtii maanta wada joogaan insha Allah waan la dhaqaajin doonaa marka waxaan ku bilaabay waxaan soo dhaweynayaa maayirka soo noo furo Lambar konton iyo toddoba 2012 wax ka dhiman ma jiro hay-adii ay khuseysay mandate-ka u lahayd hawshana oo ah wasaaradda caafimaadka ayta xanaanada xoolaha waxayaan iyaguna laamahayga kala duwanaa waa loo qaybiyay runtii waa arrin u taala in bulshada isticmaalaysa inay hirgeliso waxa sharciga hadii la dhaqan gelin waayo marka xanuunada inta badan waxay ka dhashaan dhulka nadaafadeedu aad ka u liidato adugtina xilli roobaadka mar walba xanuunada dhasha waxaas waxa weeyaan waa dayacanaan bulshada dhexdeeda ah qaabka qashinka la iskaga nadiifinayo iyo qaabka loo hagaajinayo meelaha la oran karo xanuun baa ka dhasha qoyaanku badan yahay xanuunkuna inta badan wuxuu bilaabmaa wuxuu ka dhashaa meelaha qoyaanku ku badan yahay sababta marka roobku doo u badanayaan waxa qoyaankiiba badanaya dhulkiiba wada rees noqonaya wada biyo fadhiisanaya marka arinta maanta halkaan inuu fadhina waa arrin muhiim ah runtii gobolka iyo guud ahaanba Soomaaliland waa arrin muhiim ah oo aynu u baahanay inaynu sideeda ugu dhaqan galno waad ogtiin hilibka sariimada hadii la dhex maro islaantii soo qarafaystay hilibka ayaa iyadoo weel aanan ama kartoon yar oo aan wanaagsanayn iyadoo dul dhigtaba waxay hor fadhiisanaysaa isla tii ay ka soo qarafaystay hilibkii soo goysay horteeda waxa dareemaysaa nadaafad darrada halka ka jirta runtii dad baa waxa laga yaabaa inay dhaqaale darro u geyso noloshina laga maari maayo hilibkii oo wax nolosheeniiba ayaa ku xiran haddana qof baa laga yaabaa inay dhaqaale darro u geeyo oo ka soo iibsado wixii oo aad moodo in xaggii nadaafadda aan aad loo hagaajin ayaa loo diray jaamacadda Nairobi 6 bilood bay ku soo qaateen tababar takhasusa sharcigii oo la baaskireeyay oo madaxweynuhu baaskireeyay oo dhaqan gala oo daabacan oo diyaar bay dalka ku soo noqdeen wasaaradda xanaanada xooluhu way qaybisay waxay kala geysay gobolada 6 gobol dalku ka kooban yahay iyo gobolka Gabiley ayaa lagu kala qoray dhamaantoodba ujeedooyinkii markaa loo sameeyay sharcigani markii ay badatay halista maalinta ka dambaysa ka imaanaysa ummadii kaga imaanaysa cudurrada ka dhalanaya cuntada markii aad u fara badatay uu khaasatan ugu horeeyay hilibku waa waxa la dejiyay siyaasad ah sidee loo awoodi karayaa in ummadda laga xakameeyo halistan cuntada ku keenayso gaar ahaan hilibkii sharci baa la sameeyay kadib haddana waxa la sameeyay sharcigii markaa hilibkii la sameeyay sharciga caanaha waa la sameeyay gacanta isna lagu hayaa kii hilibka maanta dhaqangal ah this is waxa weeye kii dhaqangalkii ugu dambeeyay waxa loo sameeyay si markaa saddex ujeedun baa laga lahaa in la yareeyo dawladda maadaama ay ka mid tahay ka mas'uul ka tahay caafimaadka dadweynaha meelaha riskigu kaga imaanayo ummadda in laga xakameeyo oo laga ilaaliyo iyo in kor loogu qaado ganacsigii
hilibka guda iyo dibadba maadaama aynu nahay dad cad iyo caano ku nool ah waxa aynu ku noolnahay waa cad iyo caano cad iyo caanaheennii bal si aynu gudahana ugu helno qiimo iyo tayo dibaddana loogu helo iyadoo loo marinayo shuruudaha caalamiga ah ee soo keeno oo dee 10 sano dambe dhali karaysa waa mamnuuc in la qalo neef dhalayana in la qalaa waa mamnuuc seeliday ku joojinayaan haddana kawaakii casarka kaga daba imaanayaan neef dhalayay ka eegeenayo wax xanuunsanaya bal inuu ku soo baxay haddana kawaakii qalistii tii qalaysay oo gacanta ku haysay ka baarayaan hilibka laftiisa qaabka loo soo xawilayo ama loo soo raray bay baarayaan haddana suuqa sidee loogu iibinayaa bay baarayaan taas oo dhan baa fulaysa bay enforcement bay ku fulaysaa waa la fulinayaa sharci awood baa lagu fulinayaa cidna looga haybaysan maayo laakiin waxaan idinla barbar taaganahay aqoontii baraarujintii taageeristii baan idinla barbar joognaa waxaan ku adkaynayaa dilaaliinta inaanay ka iibinin hiliblaha neef dhalaya oo aanay hiliblaha khasaarin oo hadduu dee qofku u qarisa neefka dhalaya waa inaydaan iibinin neef xanuunsanayana marka hore maba iibisaan baan u malaynayaa ama sayladaheenna lama keeno neef xanuunsanaya laakiin waxa muhiimadda koobaad inoo tahay war laba waxbaa iskaga keen dul dhimanaya neefkii taranka lahaana waynu dilaynaa kii aynu ka reebi lahaynee berrinta aynu munaafacadsan lahayna uurkiisii baa lagu dilay bal inaynu taa wax ka qabanno iyo qaabkan xun ee isdhex daadsan ee suuqa loogu soo bandhigo ee aan duqsigu afkaa uu ka taagan yahay آخر واحد يذكر برارجيني هذين كنا إن هذي بكمر كذي بينسان بل صادق إلى لسان عند وفد ضدك كإيمان إنسان إذا فرها أستجله إذا دخسيجا بل آخرت أنت إنه هرينا ما لم بتلوي إنه كرينا ما لم بتلاوي إنه قاضينا إذا كسرتان تلاضح دخسيجا لقيه عليه بل كلفته دينا كسرتان وأنا ندك عاوين دونا وأنا ندين بل قاضيا إن ندك عاويه يدين كنا تلاضحها أما قلنا خدمة الله يدين كقاضيا إنه كأنه أما بحوية أنه نقول سمينا وسارة هان إبل وحيتين سوبر ديستيسي نذا فدي سكاقة بقاضنا يا